caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha leh halka aad nagala socotaan waa Sakhawdiin channel haddii ay tahay markii idinku horeysay aadna soo booqato aad naga daawatid barnaamijyadan qiimaha leh aan ugu talagalnay bulshada fadlan waxaan si naxariis kaaga codsanaynaa inaad subscribe-ka like-ta iyo share-ka aad naga ilaabin daawadayaal caawa waa taariikhdu ay ku aadan tahay ama ay bishu tahay January 2020 waxaan ugu talagalnay barnaamij qiimo leh inaan u soo jeedino bulshada Soomaaliyeed ee daawanaysa sida aalabaad nooga barateen waxaan caawa idin haynaa barnaamij ku saabsan waana dhakhtar qeybihiisii ugu horeeyay baan ku jirnaa caawa ciwaankeena waxa weeyaan ka hadlayno wax la yiraahdo water therapy waxa la yiraahdaa Soomaaliga hadii aan ku micnayno in biyo wax lagu daweeyo Soomaalidu way la yaabaan in dhakhtarka markii aad u tagto ku yiraahdo biyo in wax lagu daweeyo laakiin maanta anaga idin xaqiijinayna in biyuhu ay yihiin dawada dabiiciga ah ee dhinac kasta saameynta ku leh haday noqoto xanuun baabi'in haday noqoto nafaqeyn haday noqoto sare u qaadid shaqooyin xubnaha jirka u muhiimka ah waxaan rabnaa inaan u xaqiijino walaalaha Soomaaliyeed ee daawanaya qiimaha leh saddex qodob oo muhiim u ah oo hadii ay saddexda qodob ama saddexda talaabo ay sameeyaan inay ka maarmi doonaan hadii Ilaahay yiraahdo inay dhakhtar u baahdaan ama ay dhakhtar dibadda u tagaan waliba promise-kaas aan la gali doono annagoo Ilaahay ka shanayna aqoonta uu nasiiyay waxa weeyaan 99.9 hadii saddexda talaabo walaaladina daawanaya aad sameeysid aad u baahan tahay xaaladda caafimaad inay tahay talaabooyin aad qaadi karayso biyuhu waa waxa ugu qiimaha badan ee nolosha bini'aadamku ay ku tirsan yihiin biyuhu ama dareeraha markii laga hadlaya waa waxa ugu badan ee jirka bini'aadamku ka sameeyay ama uu ka kooban yahay waxa uu ka kooban yahay 70% hadda waa 70% 70% jirkaagu waa liquids ama dareere ama water biyo caadi biyaha aynu maanta dadka kula talinayna ama ku dhiirigelinayno ma aha biyihii qasna qowshna sharaab sida kuwa gasaacada sida waxyaabo kale ee waa biyaha caadiga ah ee Ilaahay uu dhulka ka soo saaray ee qasabadaha ka socdaan ee fuustooyinku noogu jiraan waxaan u baahanahay biyahan saddexdan talaabo muhiimadda ay leeyihiin waxa weeyaan koow waxay ka badbaadinayaan in kaliyaha ku fadhiistaan in kaliyuhu si fiican u shaqeeyaan labo in beerkaagu si fiican u shaqeeyo oo beerka ay meerayaan saddex jirka bini'aadamka ah wuxuu helayaa balancigi biyuhu u baahnaa ee qofku uu ku noolaa saddexdan talaabo maxay tahay soo qaada qalin adiga ni daawanayo walaalkayga Soomaaliyeed haddii aad tahay qof ku dhiban xaalad caafimaad ama waalidkiisu uu dhiban yahay ama xaaskiisu ay dhiban tahay ama hooyadii ay dhiban tahay ogow biyuhu waa waxa ugu qiimo badan ee noloshu sidoo kale caafimaadku wuxuu yiraahdaa ka hortaga waxa ka wanaagsan in wax la daaweeyo in wax laga arto prevention is better than cure-ga waa tahay saddexdii talaabo soo qaada qalin talaabada koowaad walaal waxa lagu taragalay inaad cabto biyuhu laga bilaawdo from the 6 morning ilaa iyo 4 galabnimo biyaha la cabaayay waa kuwa caafimaadka ugu badan leh oo joogto ah
labadii saacadoodba waxaan u baahannahay inaan liiter biyaha cabno labadii saacadood kalena inaan liiter biyaha cabno labadii saacadoodna inaan cabno liiter biyaha 3 liiter oo biyaha bardhay qofka cabaayay wuxuu ka hortagayaa wuxuu ka badbaadayaa inay keliyuhu fadhiistaan in beerka shaqadiisa uu gabo in beerka uu sumoobo in dheefshiid xumo ku dhacdo constipation wax loo yaqaan saxarada ayaa ku adag dadka aan biyaha cabin keliyahoodana u fiirso ka dadka aan biyaha cabin kaadidooda ur bay leedahay haddii marka biyaha u cabaan kaadidaadu waa la dareemaya haddaadan biyo cabinna meesha aad ku kaadisa dadka soo galay waxay leeyihiin qofkan maxaa ku dhacay marka adigan daawanaya haddii biyaha sidaa u cabtaan waa kow tallaabada labaad qoro tallaabada labaad ee caafimaadku uu inoo qeexaya mu inoo sheegaya waxaa ka mid ah mar alla markaad cunada cuntid 40 daqiiqo ka bacdi inaad cabtid 2 galaas oo biyo kulul ah marka biyaha kulul zaaid u kulul micneeda maaha biyo dab laga soo qaaday sida shaaho kale inaad biyaha u cabtid biyaha kulul waxay dheefshiidka ay hormarinayaan ama ay sare u qaadayaan dheefshiidkaaga inuu durbadiiba wax ridqo uu durbada geeyo sidoo kale wax loo yaqaan adipose tissue ku sameeyay adipose waxa la yiraahdaa dadkan u micnaynay waa baruur abuurmaysa ama ku aruuraysa meelaha qaar accumulation bay ku sameynaysaa jirkaaga sida beerka sida magaraysa mindhicirada caloosha korkeeda ariga markii la qaro Soomaalida arkin xoogka ku dahaaran dhan in baruur yahay baruurtaas oo kala sameysmayso biyahan kulul waxay ka hortagayaan marka inay yani baruurtaas sameysanto adipose tissue qofka marka muxuu noqonayaa qof aan calool lahayn u fiirso dadka caloosha leh waa dadka cunada ku cunno badan intay cunaan kuna seexday haddii marka biyaha kulul la joogteeyo qofka adipose tissue ma yeelanayo وما سنتي مبررت ما يراني قضبك سدحاد يعني ربينا نسميه وحويا ولكن هذيك داورية عنده عد عنتي أما واحد كستو الله عناية قش سار بلو بهاي وحين رنا إن إسكوب بيس جرينا شقدا عرمين عن قبلنا يوحنا عنينا رهبة جت قلدا عفمات كوي استعمالان you are what you eat وحات هاي وحات عنت أضو ولكن داورنا يوم وعارنا مركا إن هذه شيء قضبك سدحاد حوي exercise jimicsi joogto ah gaalada ama dadka dunida hormaray salaada marka laga baxaa dadka islaam ah kuwa kalena gaalada early in the morning orod bay sameynayaan jimicsi adiga aan daawanaya marka maxaa sameynaysaa waxaa sameynaysaa adoo shirkad ka shaqeynay gaari ku socdo shaaha cadays iska buuxiyay qada cunay hilib cunay wax kasta cunay baad seexanaysaa markaas aad rabtaa inaad ku gaadho 6 jir caafimaad ma suurta galayso maxaa rabnaa in cunadaada iyo shaqadaada is yeeshaan waa qodobkaasi saddexdaa qodob aan rabaa walaalkayga kale aan rabay inaan taro qodobka aan rabay aan ku dhiirinayo waxa weeyaan aroortii ama subaxa quraacdaadu ha koobnaato tusaale ahaan weliba dadka calooshooda maran tahay ama haddii aad sooman tahay weliba walaalkayga isdaawanayo calooshaada ku bilaaw furitis ama miraha dhulka ka baxay sida tufaax muuska moos aw taqaanidii daawana labada dhinacba muus iyo moos tufaax qudradda aad ku bilowday calooshaada waxay badbaadinaysaa in ay yimaadaan xanuunada ku dhaca caloosha walaalkayga daawanayo waxaan rabnaa mar kastoo aad gaajoon tahay ha ku bilaabin wax dufan leh ha ku bilaabin wax acid leh ha ku bilaabin wax qamiir ama something like that ku bilow qudradda ku bilow biyaha caadiga وفانتان أمرينيا تلوين كاسي عافيمات يكون فرق بدنه صوص عدا أي channel كينا كلا سعون تنتان داودياش قيمها على الدنيا ده ملك استوى أدجتين وسلامتهين وأولادكين سخاودين ومركز تيجي لسه عسين ده برنامجيو قيمة له أقصى ليسن أقان ما برنك ما هو عن كله أقان وحين هو اسمه درسني نوحوا إيه وحي عنه عن إذن دانو أديتك قارنا فرين تهدي ضبها هنتا وحي ضبها هنتا موضوع عافمات كا يعني ربطين لقى جاهل بيه فضل فرين نورب ولا ليال هل كان نقرأ سعتان وسخاودين channel ما هذه كجادة وحنادو ما هاد علينا يا كاميرمان معلن كي أما صاحب كي قال لي أستاذ عمر فاروق وحق إدنتك سي حق العانة إن شاء الله نوجا أقربحه يا كاميرمان ده دياري صباح يا داعد يا أيوب يا أصحاب عبد الفتاح هل كان تاجنا يقولون السلام منا لما نحن ذيك عصرنا تلوين كان أوجد بيا ونشر قرية ولا له هنا أصحابتي هنقول حاسد أسجى فائدة وفائدة دتك ولكن هذيك نداونا يا قالجة وحن ذيك جتك يا فيديو يدا كلا يسوع صعدة أنت أنا جارين كهر كان عاو ونقولنا هاي ويجان إن فيديو كوب صعد إن على فرصة عودت لكن ويجت صوص صعدة يعني ذيك أقرب عدونا إن شاء الله دي هذا وحن ذيك جتك دونا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.